السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمانتينا ميلو بعد جوكتان كسو دوادا موخال كمانتا بدنكينا وحانوبا إن التخانين نين لغو مقعابو نصير ياسين أما لغيابو إن أد مقعيس أخونين لكن وحاتقانا شانل كيسا حدبا يوتيوبر كان أيا وحونو خضي معلميه لصودا في يوتيوبر كي لغو نعبا دhanka youtube-ka macnaha ninkan wuxuu noqday ama wiilkan wuxuu noqday ninka loogu nacab yahay dadka lagu nacab youtube laakiin taas maxaa keenay ninkan ama wiilkan wuxuu ahaa qof fiican dad badan ayaa taageersana dad badan ayaa channelkiis ku xirnaa dad badan ayaa jeclaa run ahaantii taas waa sax yani qofkan wuxuu ahaa qof la jecel qof la taageersana laakiin mar walba qaladkiis waa loo jeeday macnaha dadka taageersan ama dadka daawan jiray waxay arkayeen qaladku sameeynaayo laga yaabo inay u dul qaadanayeen kadib haddana maalmo kadib ama muddo kadibna haddana qof kale ayuu qaladka gali jiray taasna dadka dhan ayaa u jeeday ugu dambeynna dadkii nacayb ay u qaadeen xitaa markuu aaday waddan ka mid ah waddamadan eeshiyaha si fiican xataa looma soo dhaweynin marka muuqaalkan waxaan ka hadli doonaa maxaa keenay nacaybkaas loo qaaday wiilkan youtuberka ah oo waagii hore la jeclaa ama la taageersanaa marka intaan muuqaalka bilaawin fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale like muuqaalka si oo dad badan u gaaro marka daawasho wacan نصير ياسين waxa uu ku dhashay dalka Falastiin gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Caraaba wiilkan ayaa wuxuu dhashay 1992 waxaana uu ka dhashay qoys Falastiiniin muslimiin ah wiilkan nolol fiican ayuu ku koray nolol caadi ah macnaha qoyskiisa waxay ahaayeen qoys hantiilayaal ah lacag way haysteen murtaaxiin yaraantiisana wuxuu ku fiicnaa xisaabta marka wiilkan Nusayr Yaasiin isla markii uu dhameeyay dugsiga sare wuxuu helay ogolaasho jaamacadda Harvard meeshaas ama jaamacaddaas ayuu wuxuu ka bilaabay inuu barto culuumta dhaqaalaha 2012 waxay ahayd waa markii ugu horeeyo oo YouTube muuqaal soo dhiga muuqaalkaasna wuxuu ahaa muuqaal caadi iska ah muuqaal yani hamburger rootiga caadiga waa taqaana hamburgerkaas ayaa waxaa lagu xiray buufin kadib hawada ayaa lagu daayay kadib muuqaalkii uu faafay dad badan ayuu gaaray dad badan ayaa comment ka bixiyay dad badan ayaa ka helay yani waxay ahayd yani fikrad inaba caadi ahayn kadib muu bilaabay khalaas youtuber aan ahay moo dhahay muuqaalada muu waday may caajis islam oo kale ahaa 2 sano kadib 2014 ayuu muuqaalkiisa labaad soo dhigay muuqaalkaasna uu soo dhigay 2014 wuxuu ahaa qaabka loo xaliyo ama xalinta mukacabka oo kalarada leh sawirkiis waa kana kaas mukacabkan oo lagu magacaabo Rubik's kaas ayuu qaabka loo xaliyo ayuu ka hadlay muuqaalkaas kadib dad badan ayaa muuqaalo saas oo kale ama muuqaalkaas oo kale ah soo dhigtay YouTube-ka ama soo saartay YouTube-ka ayagoo wali sameynaya qaabka loo xaliyo ama sharaxayo qaabka loo xaliyo mukacabkaas Rubik's heer xataa waxay gaartay kuwa qaar in ay ku tartamaan yani meeqa sakan ay ku qaadanay inuu xaliyo mukacabkaas على حال نصير ياسين wuxuu ka shaqeyn jiray waagaas shirkadda Venmo oo ka ahaa software engineer laakiin muddo kadib shaqadii uu ka tagay wuxuu u soo jeestay ama wuxuu go'aansaday inuu noqdo YouTuber wuxuu go'aansaday inuu shaqadiisa ka dhigo sameynta muuqaalada marka 2016 wuxuu keenay fikradaas waxay ahayd inuu soo saaro maalin walba muuqaal xitaa haduu yahay muuqaalka 1 daqiiqo حتى هدو يهي 10 سكن 20 سكن مالنتي وانا هل موخال سون سارا برنامجكاسنا wuxuu u bixiyay naas daily laakiin muuqaalada uu soo dhigi jiray ma ahayn muuqaalo iska hadal ah kaliya qisso ama wax fikrad yar ama wax ayuu soo dhigay dadku wuxuu la wadaagay fikrad ama qisso ama wax kale marka muuqaalada wuxuu soo dhigay YouTube-ka sidoo kale Facebook marka dadkii ayaa ka helay Facebookna waa taqaaniin yani taabasho bas click share wala share gareyn jiray sida YouTube-ka oo kale maahan YouTube-ka way adag tahay inuu qofka link qaado ka bax programka kala tag share garey waa sheeko dheer laakiin Facebook waa hal click uu share garey marka dadkii way ka heleen muuqaaladaas way faafeen ilaa iyo Latin America ilaa iyo Asia ay gaareen taasna waxay keentay inuu noqdo qof caan ah oo meel walba uu tago la soo dhaweenayo maxaa yeelay khalaas dadku way ka heleen muuqaaladiisa way ka heleen ninkan ama wiilkan way barteen muuqaalada qaar waxa daawan jirtay 20 milyan xilligaas 2014 20 milyan way adkeen hadda qof walba heesa hadda 20 milyan Soomaalida noqonaysa على أي حال dadkii خلاص way ka heleen waa la bartay xitaa muuqaaladaas ma aragtay commentiyada laga bixinay waxay ahaayeen commentiyo iijaabi ah yani wax wanaagsan wax fiican yani ما شاء الله خطرات هاي بالواي wax fiican iijaabi waa taqaana ya akhan dibin muuqaalo ma ahna commentiyo iijaabi ah positive okay positive taqaana iijaabi carab way waa ka doodi doonta على أي حال muuqaaladaas waxay ahaayeen commentiyadaas waxay ahaayeen commentiyo positive ah dadka way ka heleen okay taas waa wax fiican jidkaada ku soco sii wad dadaalkaada sii wad taas ayaa la rabay laakiin asaga ma sameeynin damac ayaa galay
wuxuu bilaabay inuu dadka khayaano dadka dhaco laakiin qaab casri ah qaab loo ogeyn ama la dareemi karin kadibna taas waxay keentay in ay dadka arintaas ama fadeexooyinkiis iyo beentiis ay ogaadaan kadib naceeb loo qaado marka qaladka ugu horeeyo ama dhacdadii ugu horeysay oo keentay in qofkan naceeb loo qaado waxay ahayd 2021 barnaamijkiis oo lagu magacaabo Nas Daily ay wuxuu ku soo qaatay haweeney ka soo jeedo dalka Filibiin waa qof ama qof waayeel ah laakiin waayeeshaas waxay ahayd caan dalka Filibiin waa la yaqaanaa waa qof caan ah waxayna ku dheer tahay yani taatuuga jirka la marsado waxaas ay samaysaa taatuuga ay dadka u marisaa laakiin qaabka casri ah uma mariso taatuuga ama qalabka ay isticmaasho waa qalab mar hore laga tagay 70 sano 40 sano 60 sano ka hor ayaa laga tagay qalabka ay isticmaasho marka Nas Daily ama Nusayr Yaasiin waxyaabahaas oo raadiya qisooyinka ayuu soo dhigaa barnaamijkiisa oo lagu magacaabo Nas Daily waxyaabahaas ayuu soo dhigaa wax cajiib ah wax la yaab leh wax saas oo kale marka Filibiin markuu tagay haweeneydaas ama waayeeshaas ayuu qaabilay haweeneydii waayeeshii ayuu duubay ama muuqaal ka sameeyay ayadoo yani taatuuga sida u sameeyso sida ay ku baratay yani dhaxal waaye sheeko dheer aday yani muuqaal ayuu ka sameeyay muuqaalkii uu qarxay uu faafay viral noqday meel walba ayuu gaaray muuqaalkaas marka waxa uu imaatay fikradiisa madaxdiisa maskaxdiisa waxa ka soo dhacday fikrad wuxuu dhahay ama fikraddu waxay ahayd wuxuu dhahay heshiis ayaan waxaan la galay haweeneydan waayeeshan oo taatuuga sameeyso heshiis ayaan la galay heshiiskaas waxa waaye waxaan furnay akaadimiyad lagu barto qaabka loo sameeyo taatuugaas yani adigoo isticmaalaysid qalabkeeda oo kale qalabkeeda lagu keenaad kuwaas yani koorso ayaan furnay heshiiska qoftaasan la galay ayadaa idin barayso online idin soo galaysa ama meesha la idin kugu imaana moogi almuhim dadka been u sheegay wuxuu dhahay heshiis aan galnay waxaa idin baraynaa qaabka loo isticmaalo qalabkeeda iyo qaabka loo sameeyo taatuuga laakiin been meel ma gaarayso been albaab ma lahan mahma hoos ku soo qor beentiisa dhab waa la qabtay waxaa soo baxday gabadha ayeyda u tahay haweeneydaas macnaha waxaa soo baxday gabadhii ayeyda loo ahaa ayaa soo baxday gabadhaas waxay dhahday ayeyday heshiis lama galin ninkan lagu magacaabo Nusayr Yaasiin sidoo kale waxay ku dartay in ayeydeed ay waxba ku ogeen heshiiskaas uu sheegay Nusayr macnaha ayeydaas waxba ma og heshiisan la galay wax kama ogay dhahday heshiiskaas sidoo kalena heshiis lama galin marka dadkii waxay bilaabeen kommentiyada inay ugu qoraan si oo naftiisa u badbaadiyo iyo fadeexadiisa isku asturo wuxuu sameeyay yani muuqaal ayuu soo dhigay ayadoo ayeydaas ama waayeeshaas ayadoo saxiixayso waraaqo waa kana u dhahay markay saxiixaysi markay heshiiska galnay markaan ku heshiinay in aan furno koorso ama akaadimi inaan furno oo dadka aan ku barno taatuuga sida loo isticmaalo iyo sida loo sameeyo sidoo kale wuxuu soo saaray yani si oo weerarka oo dadku ku qaadeen weerarka dadka reer Filibiin weerar ay ku qaadeen Soomaan kommentiyada meel walba marka si oo weerarkaas iskaga celiyo wuxuu sameeyay qoraal dheer ayuu soo dhigay qoraal dheer oo ka hadlaayo ama amaanayo dadka reer Filibiin aniga waan ixtiraamaa dhaqankood iyo hidahood iyo waxyaabahood asagoo ka hadlaayo waxyaabahaas laakiin dadka ma istaageen way sii wadeen weerarka hujuum ay ku qaadeen haddana mar labaad waxa uu soo jawaabtay gabadhii ayeyda loo ahaa waxay dhahday ayeyday ayaan la hadlay arintaas wax kama ogo saxiixa uu sheegayna wax kama ogi saxiix wax waan saxiixay waraaqo waan saxiixay laakiin waxay tahay maba ogi laga yaabo inuu dhahay waraaqdan inaad ogashahay inaan ku sawiro inaan ka duubno muuqaal laga yaabo inay taas xataa ahayd sidoo kale gabadha waxay dhahday ayeyday yani familkeed qaraabadeed ayaa lacag la siiyay si ay u saxiixdo waraaqdaas ayeyda ayaa sheegtay arintan waxay dhahday waraaqdaas yani familka qaraabada ayaa lacag la siiyay marka ay soo baareen yani arinta lacag ayaa la siiyay si ay u qanciyaan ayeydii in ay waraaq wax saxiixdo mar labaad haddana dadkii weerar ay ku qaadeen Nusayr Yaasiin marka ugu dambeyn wuxuu sameeyay course-kii ayuu deelay website-kii oo akaadimiyada ahayd maaragtay taatuuga lagu barto asaga dhan hawadu ka saaray uu diileeday sidoo kale YouTube wuxuu ka saaray muuqaalkii oo ayada ka diyaariyay waayeeshii uu duubay qaabka uu sameeyay taatuuga iyo waxyaabahaas YouTube xataa uu ka saaray muuqaalka YouTube markuu ka saaray dadkii way sii xanaaqeen marka hore waxa lagu heystay course-kaas inuu been ahaa course-kii markuu wuxuu website-ka uu ka qaaday oo ka tiray haddana YouTube-kiisu galay muuqaalkeed ayuu tiray marka dadka waxay taagan yihiin course-kii waa batirtiye muuqaalka maxaa u tirtay dadka waxa u cadaatay inuu xanaaqay inuu yani maadaama fadeexada lagu qabtay inuu ka xanaaqay marka macal muuqaalkii ayuu tiray dadka taasna waxay keentay dadka in haddana mar labaad ay weerar ku qaadaan kommentiyada qof walbana ka hadlo qof walba YouTuber ah dhab muuqaalkiisu soo qaadana maanta muddo dhan waxaa socday sheekooyinkiisa okay qisada sidaas may ku dhamaatay may waxa dhacday gabar kala soo baxday waxa jirto dadka qaar waxa jiro mataqaana dadka qaar waxa jiro qalad ayaa ka galay ama qalad ayaa laga galaa kadib uu iska aamusa iska dul qaadana maalintii la qabto qofkaas qaladka ka galay maalintii la qabto markaas uu qofkii hadlaa
ani xataa maalintaas saan ayuu ii galay marka taas oo kale ayaa hadda dhacday arinta oo haweeneydii oo tatuuga dadka u marayso marka oo ay soo baxday qisadaas markay dhacday waxa soo baxday gabar kale oo ka soo jeeda ayadana dalka Philippines gabar lagu magacaabo Luisa oo ka soo jeeda dalka Philippines ayaa waxay ka shaqeynaysay barnaamij yani beerinta ama abuurinta geedka ama miraha kakaawga gabadhaas ayaa waxay baahisay sheeko muran badan dhalisay haddana haweeneydan ama gabadhan يعني قصة waxay ku baahisay Facebook barteeda Facebook ayaa waxay soo dhigtay qisada waxayna dhahday qisadan waxaan qarinay muddo 2 sano waxay dhahday Nusayr Yaasiin tuuladeed wuxuu booqday 2019 si oo muuqaal ugu sameeyo mashruuca beerista miraha kakaawga waagaasna waxaan ahaa sida ay sheegayso gabadha waxaan ahaa qof taageersan qofkaas waxay ka wadaa Nusayr Yaasiin waxaan ahaa qof taageersan oo ku farxay markuu ila soo xiriiray ayaa muuqaalan fikradaada ama sheekadan ka sameynayna markuu dhahay waan ku farxay waan soo dhaweeyay taasna waa normal qof ku daawan jiray ku taageersan beri haduu ku dhaha kaale muuqaal ayaa fikradaada ama hawsha aad qabatid muuqaal ayaan ka sameynayna 100% waad ogolaanay sidoo kalena waad ku farxay marka gabadhaas way ku faraxsaneed waxay dhahday markaan isla heshiinay inuu muuqaal ka sameeyo fikradaas ama mashruucaas beerista kakaawga si fiican ayaa tuulada ugu soo dhaweynay si wanaagsan ayaa loola dhaqmay intuu magaalada joogay si wanaagsan iyo si fiican ayaa loola dhaqmay si fiican ayaa loo soo dhaweeyay laakiin dabeecad xumo ayuu lahaa ama wuxuu lahaa yani ficilo xun ayuu sameyn jiray ficiladaasna uu sameyn jiray waxa kamid ah inuu dhaha luqadiina waa luqad xun qofka markuu maqlo luqad oo luqadiisa ahayn hindi teere bangar bar iyo chachi normal wuxuu u maleeyaa yani wuxuu laakiin uu sheega maaha dadka hadan dadku oo dadkii soo dhaweeyeen ayuu wajigooda hortooda ku sheegay wuxuu dhahay maxaa way luqadan ku hadlaysiin waa luqad falxun sidoo kale gabadhaas waxay sheegtay yani dadka faqiiriinta ay wuxuu ku sheegay maxay faqiiriin u yihiin macnaha wuxuu dhahay yani maxaa way faqiiridan meel walba faqiira maraya faqiira jooga meel walba sidoo kale wuxuu weydiiyay maxaarir Philippines faqiiro ka dhigay waa sida ay sheegayso gabadha hadalkeed ninkan ayaa wuxuu ahaa nin ihtimaam siiyo viewskiisa macnaha waxa u daran viewskiisa qisuu ka sameeyna muuqaal uu ka sameeyna asaga dan ma lahan tantiisa waxay tahay views in muuqaalkiisa uu faafo uu qarxo dad badan daawato sidoo kale mashruuc fiican haduu yahay inuu qayb kula gala ama asaga ka koobi gareysto mashruucaadna koobi u dhaha uu guurina qoraalkaas gabadhaas qortay meel walba ayaa la dhigay dalka Philippines waliba iska dhaaf dalka caalamka dhan uu gaaray laakiin dalka Philippines meel walba ayaa qof walba ayaa share gareeyay dadkii qoraalkaas akhriyay ama qisadaas akhriyay waxay bilaaween in ay eedo u jeediyaan Nusayr Yaasiin mar labaad uu soo hadlay fadeexa walba dhab lagu soo qabsay waa laazim qasab waa ku khasbantaa ina soo fadhiisatid runta sheegtid wuu soo hadlay wuxuu dhahay mashruucaas ma noqonin sida aan filanayni Nusayr Yaasiin wuxuu dhahay mashruucaas waxaan u maleeyay inuu ahaa non profit يعني مشروع غير ربحي يعني العقل لقى هلو مو اوغي اف سومالي وحلو دها مؤسسه غير ربحيه وحده هي نون بروفيت اي امليناي مشروعاس لكن وحو نقضي ما نقنين وحده هي مشروعاس وحا كفائدايو قفك بلاوي يعني غبناس مشروعاس way ka faa'iideysi lacag ay ka helaysi anigana waxaan umaleynay in lacag laga helinbo ma jira mashruuc lacag laga helaynin taas ma ogi ani saasoo dhahay laakiin dadka taas waxay u arkeen in ay ku marmarsiyoonay oo ku qarinayo fadeexadan soo gaartay arintaas kadib Nusayr Yaasiin 1 milyan qof ayaa unsubscribe dhahday subscribe-ku way kala laabatay 1 milyan qof laakiin Nusayr Yaasiin wax kama dhihin waxaas sheekadiisa ayuu watay muuqaal sameyntiisa ayuu hore u sii watay marka 2021 isla sanadkaas waaya wuxuu muuqaalo ka sameeyay 2 nin oo caan ah oo la yaqaan waa 2 nin iska leh shirkadaha maalgashiga iyo isku bedelka lacagahan oo electronic ah crypto lacagahan oo online ka ah bitcoin bla coin waxyaabaas marka labadaas nin ayaa waxa la kala yiraahdaa Sam iyo Chang Sam wuxuu leeyahay shirkadan lagu magacaabo FTX ninka kalena magaciisu yahay Chang wuxuu iska leeyahay shirkad lagu magacaabo Binance miya moogi marka Nusayr Yaasiin labadaas qof muuqaalo ayuu ka sameeyay asagoo amaanayo ninka la yiraahdo Sam wuxuu ku sheegay inuu yahay nin deeqsi ah hantidiisa dadka masaakiimada u qeybiyo mahan ee wax ka siiyo hantidiisa maalkiisa dadka faqiiriinta ama fuqarada maaragtay iyo masaakiinta ayuu hantidiisa wax ka siiya ninka kalena oo Shang la yiraahdo wuxuu ku tilmaamay tawaadu waa nin iska fiican iska degan oo noloshiisa ay tahay nolol caadi ah inkastoo uu maal qabeen uu yahay laakiin waa qof mutawaadic ah labiskiisa waa iska caadi gaarigiisa baawurkiisa asagoo dhan waa caadi gurigiisa waa qof mutawaadic ah runtii qofka markuu wax ka soo duubayo fikrada ama sheeko ama qiso haduu wax soo duubayo qisadii ayuu wax ka soo duubaa khalaas way dhamaatay laakiin haduu amaan iyo sheekadaas iyo arimahaas hadii gaarto dadku waxay u qaadanayaan inuu lacag ka qaatay ama inuu lacag ku qaatay arintaas yani qisadaas amaantaas iyo waxyaabahaas
lacag ayuu qaatay laakiin Nusayr Yaasiin wuxuu dhahay lacag kama qaadanin yani maya lacag kama qaadanin labadaas qof maxaa dhacday 2022 Nusayr Yaasiin podcast ayaa lagu wareystay qisooyinka qaar ama sheekooyinka qaar lacag ma ku qaadatay wuxuu dhahay ha lacag waan ku qaatay waa asaga idhahay يعني qisooyinka lacag kama qaatay dadkani laakiin taas waxay ku tusay inuu isfashilay ay way ka hoos baxday marka laga yaabo inuu is ilaaway marka la wareystay يعني muuqaalada qaar lacag ma ku qaadataa dadka aad soo bandhigtid iyo sheekooyinkood lacag ma ku siiyaan wuxuu dhahay ha lacag way siiyaan run ahaantii يعني aakhir maxalla raxmarka waxay dhahan ataxiyaadku ku dhuusay يعني adi waxa dhahday waxa يعني lacag kama qaatid lacag kuma qaatid sheekooyinkan ugu dambeyn يعني adoo lagu qaban raba meesh ugu dambeys waxa dhahday ha waan ku qaataa على اي حال 2024 Sam iyo kii ma sorry 2023 waxa la qabtay ninkii lagu magacaaba Sam waa ninkii iska lahaa shirkadda FTX waa la qabtay xabsi ayaa lagu xukumay kadib markaa la waayay 152 bilyan dollar ah lacagtaas waa dadka yani dadka lacagahood waa dadka maalgashtay shirkadiisa maalgashi diraash waxa ay ahayd Soomaan intaas oo lacag dhan dadkaas oo dhan lacagtaas meesha ay ku shubaayeen 152 bilyan 152 milyaar ama bilyon saa u taqaanid hawada ay ka baxday yani akoontigiisa ama shirkadda waa laga waayay dhab waa la qabtay waxa lagu xukumay 25 sano xabsi isla markaas sanad kadib 2023 Shang ayaa la qabtay waxa lagu xukumay 4 bilood markuu oo kadib yani arintaas waxay dhacday Shang waxa lagu qabtay arimo yani qaanuun sharci darro ah kadib waxa lagu xukumay 4 bil marka labadaas qof la xiray naas deeli yani dhaawac ay u geysay run ahaantii waa dadkii adag soo amaanay waa dadkii u dhahay mutawaadiciin iyo balabla iyo waxaas hadda way xiran yihiin dadkii isla markii way xanaaqeen dad yani dadka asxaab YouTube isla markii way kaceen naas deeli ayaa muuqaalo laga sameeyay waxay dhaheen waa kan qofkii oo dadkaas amaanay waa ninkan hal qabta asaga magaciisa trend ayuu noqday dunida dhan trend ayuu ka noqday qof walba nin walba yani meel walba naceeb iyo wax xun ayaa laga sheegay normal way iska jiraan dad taageersan ilaa hadda dad ay dhahayaan maya saas qalad way qasab way jiraan laakiin dadka badan way ku kaceen mid kale ayaa haddana waxa jirto tan ugu daran wuxuu bilaaway inuu ka hadla arimaha dagaalada Falastiin iyo Israa'iil iyo arimahaas inuu galo wuxuu dhahay ama wuxuu sheegay inuu yahay Falastiin Israa'iili run ahaantii asaga wuxuu kamid yahay Falastiiniinta Carabta ah oo lagu magacaabo Carab Daakhil wuxuuna ka dhashay aabo Falastiini hooyo Falastiini ah laakiin hadda wuxuu sheegtay Falastiin Israa'iili sidoo kale wuxuu sheegay inuu jecleen dagaalada iyo balaayada iyo mashaakilka wuxuu dhahay waxaan jeclahay yahuudda inay nabad ay ku noolaadaan sidoo kale Falastiiniintana in ay nabad ku noolaadaan kama hadlin yani xasuuqii balaayadii rafaadkii loo geystay ahlu Gaza kama hadlin qoraalkaas markuu soo qoray waxa uu maleynaa indhuhu isku hayay saas u dhahay saas uu ka sheekeynay arimahaas uu ka sheekeynay kama hadlin yani Falastiin intaasoo sano 70 sano ayaa gumaysi ku jirta asagana uu kamid yahay laakiin ma ogi dhiigiisa may bedeleen ma ogi asaga wuxuu kamid yahay carabta degto dhulka yani meeshaas Israa'iil haysato way ku qasbiyihiin in baasaboorkood ay qaataan baasaboorka Israa'iiliinta inay qaataan alshan way ku dhex jiraan khalaas intaasoo sano dhaxdood ay ku jiraan marka laakiin haddana wuxuu dhahay waxaan ahay yahuudi Falastiini arintaas kadibna muuqaalo badan ayaa carabta ka sameeyay la iska ilaaliyo tuugi indiraash wax walba xitaa wuxuu sameeyay shirkad oo laga yaabo muuqaaladiisa meel badan inaad ku aragtiin shirkadaasna waxa ku biirtay YouTubero badan ah YouTuberadaas carab ah way ku biireen channelkiisa ma sorry shirkadiisa maxaa yeelay dadka ma ogeen yani dadka ma ogeen yani meeshan shirkadan in ay iska leeyahay ninkan lagu magacaabo Nusayr Yaasiin oo ka dambeeyo dadka waaweyn xagga yahuud iyo dadkaas ka dambeeyo shirkadana waxay ku taalay meeshan dalkan Imaaraadka meesha ayaa lagu sameeyay kaali mawhabad ma leedahay kaali yani news wararka laga yaabo inaad waliga ma ku fiican tahay kaali news vlogi ma ku fiican tahay kaali dadkaas oo dhan isku soo aruuriyay dadkii waxay sameeyeen waa lagu biiray shirkadaas waa la isku qoray imtixaan laga qaadaa hadda ku baastid ana kana la shaqeynaa contract dadkii way ku faafeen baaritaan kadib waxa la ogaaday inuu kamid ahaa Nusayr Yaasiin markii oo mida ka sheekeynay muuqaalkiis Faadi wiil la yiraahdo yani linkiga ma ogi sawirkiisa idin soo dhigaa channelkiisa ayuu ka hadlay wuxuu meesha markaan tagnay kana ka soo horbaxay Allah ma adiga ahayd ka dhacday sheekada markaas ayaa dadku ogaadeen inuu yani shirkadan oo iska leeyahay ninkan lagu magacaabo Nusayr Yaasiin kadibna way ka baxeen laakiin dadka qaarna kama bixin sida ninkan
محل لها أسجع نين كان لقوا مجابو الدحيح كما بحين الجزيرة مركو كبحي شركة داس أيو كبيرة قصب واي العاق أي توسين خلاص قفك إنه شخصتا يربا العاق أي قدرن هايه حكو كان مركا waxaa hubaal ah lacag ayaa la tusay lacag ayaa loo sheegtay ama loo sheegay khalaas buu qancay shirkadaas ayuu la galay addaxiixna muuqaaladiisu way fiican yihiin asaga waxa u daran inuu shaqeysto ninka Israa'iili waa iyo Yahuudi waa iyo waxa shaqadiisa maahan dhamaantiina waa taqaaniin mowduucyadiisa iyo waxyaabihiis waa wax fiican laakiin dadkaas ayuu ku jira ama dadkaas ayuu ka qayb galay halayt xal dhacdadii afaraad ama dhacdadii ugu dambaysa waxay ahayd 7 Oktoobar marka dhacday ama sida loo yaqaan weerarkii 7 Oktoobar weerarkaas markuu dhacay isla markaana Yahuudda way soo jawaabtay yani Gaza dagaal iyo gintaal iyo wax walba ayaa lagu riday taasna markay dhacday Nusayr Yaasiin uu soo hadlay isla markii suuradda uu iskeenay wuxuu dhahay nabadda inay jirto aan jeclaan lahaa weligay waxaan jeclahay inay heshiiyaan Falastiin iyo Yahuudda inay heshiiyaan aan jeclahay run ahaantii qoraal dheer ayuu ahaa qoraal dheer wuxuu dhahay inay heshiiyaan ayaan rabaa ama waan jeclaan lahaa inay heshiiyaan laakiin waxaa xagga dambe ka raaciyay in uu mudnaanta siiyo Israa'iil maadaama uu yahay Israa'iili mid kale waagi hore wuxuu dhahay jiray waxaan ahay Falastiini Israa'iili laakiin tookadan wuxuu dhahay Israa'iili awalan yani marka hore Israa'iiliyan ahay alayt xal qofkan ama ninkan xaaladiis khalaas يعني بربري مروسا dadkii nacab ay u qaadeen malaayiin subscribers ayuu waayay muuqaaladiis ugu dambeey xataa hada aragtid dad badan ma daawato si hore looma daawado dadkii khalaas yani mar walba qaladaadkiisa ayaa batay daraad dhow xataa wuxuu aaday wadan kamid ah wadamadan Aasiyaha si xun ayaa loo soo dhaweeyay way jireen dad soo dhaweynaya oo sawir la galay laakiin dadka badan caay iyo aflagaado si xun dhulka ayaa lagu jiiday على أي حال مغالك أنت سوها وحرجنا إن تكهشي أديت كهشي لو ذاك أصحاب هذا ما أشير قري مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام